safarkii ugu horeeyay ee madaxweyne Turki ah oo muddo 15 sano ka badan ku yimaaday Itoobiya ayuu Erdogan ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Wuxuu ahaa socdaal siyaasadeed oo la sanqaaday isbeddelka sida hilaaca u socda iyo ilmarogashada siyaasadeed ee haatan ka cartamaysa gobolka aan deganaanshaha haysan ee Geeska Afrika. Erdogan waa uu ku hungoobay safarkii uu doonayay inuu ku tago isu tag Imaaraadka Carabta. Wuxuu diyaarad u qaatay inuu la kulmo Abiy Ahmed si uu uga hadlo afar arrimood oo dhammaantood lagama maarmaan loo arko waqti xaadirkan si toos ahna u taabanayo danaha Turkiga ee qaaradda Afrika, kuwaas oo kala ah Itoobiya iyo sida looga arko safarkii Erdogan. Warbaahinta dowladda Itoobiya waxay warbixino hordhac ah iyo kuwa ka daba tag ah ka daabacday socdaalkii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Wuxuu ka faallooday arrimo ka fog kana durugsan kuwii Erdogan uu diyaaradda u soo qaatay oo uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya, kuwaas oo dhammaantooda ahaa qadiyada taabanayo deganaanshaha gobolka Geeska Afrika. Saxaafadda ku hadasha afka xukuumadda Addis Ababa ee la yiraahdo EVC waxa ay sheegtay in safarka Erdogan uu ahaa mid lagu sii adkeynayay laguna xoojinayo xiriirka absoogaarka ah iyo cilaaqaadka sooyaalka dheer soo taxnaa ee u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Itoobiya, kaas oo ay tibaaxeen inuu ahaa mid soo jiray boqolkii sano ee la soo dhaafay. Waxay tilmaameen Turkiga markasta inuu ahaa mid ka shaqeeya danaha Itoobiya iyo wixii boqortooyada ay doonaysay sanadihii hore, iyaga oo taasina tusaale u soo qaatay in dowladda Cusmaaniyiintu ay hambalyo u soo dirtay Abyssinia jabkii xooggan ee loo geystay ciidankii Talyaaniga ee duulaanka ku qaaday dalka Itoobiya, gaar ahaan macrakada ama dagaaladii kale. Dhammaan warbixinadii la daabacay ama lagu faafiyey warbaahinta dowladda daacadda u ah Abiy Ahmed waxaa laga fogaaday in laga dheeraado ka hadalka arrimaha gobolka haatan taagan, waxaana lagu gaabshay in safarka uu ahaa mid si daahfuran aan loo shaacin ama aan lagu soo hadal qaadin qodobadii dhabta ahaa ee labada dhinac ay ka wada hadleen intii dooduhu ay socdeen. Erdogan wuu ku guuldareystay inuu Abiy Ahmed ku qanciyo 3 qodob oo dhankiisa muhiim u ahaa. Booqashadii kadiska ahayd ee Erdogan oo ku soo gaaray Addis Ababa waxay ahayd mid ku timid culeysyada siyaasadeed ee ka taagan gobolka, xasaradaha la saaxiibka ah ee Geeska Afrika iyo jahwareerka ka dhashay aqoonsigii Somaliland, dagaalka Suudaan iyo badbaadinta Itoobiya oo noqotay mid si weyn gobolka saameyn ugu yeelatay. Dalal badan ay shaki ka qabaan siday u noqon karto mid meel mar ah. Erdogan wuxuu ahaa safarkiisa mid ku yimid aragti ay qabaan dalalka danwadaagta sida saameynta gobolka ay ku yeelanayso sida Sacuudiga, Qatar, Turkiga iyo Pakistan oo Masar ay ku jirto oo iyagu dhammaantood doonayeen inay jaangooyaan goobta looga ariminayo Geeska Afrika. Hogaamiyaha Turkiga waxaa loo arkay inuu yahay nin maalgashi badan ku sameeyay Itoobiya, abaal aan doogobino u hayo Abiy Ahmed xilligii duulaanka uu kula jiray kooxda TPLF. sidoo kale tan aan weli ka hor imaanin siyaasadda Itoobiya. Waxaa la rumaysan yahay in Erdogan Abiy ka heli doonin jawaab ka duwan tii uu kala kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya oo isagu gacmo maran kala soo laabtay safarkii uu ku tagay dalka Itoobiya intii booqashada dhinacyada ay ku jireen. 3 qodob Erdogan uu arkay in Abiy uu degdeg u fulin doono kana qaadan doono go'aan xulafada Turkiga waxay noqdeen kuwo meesha ka baxay, lagumana guuleysan Itoobiya in laga helo arrimihii Erdogan ka doonayay, kuwaas oo kala ah in xiriirka loo jaro Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo sidoo kale Turkigu waxa uu suuro gashay inay kala dilaan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Imaaraadka Carabta iyagoo ka faa'iideysanaya duufaantii ka dhalatay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland ay ku dhawaaqday. Gunaanadka guuyi galbaday ee 2025kii ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku qanciyay inuu ka baxo heshiisyadii hore oo la galay dhanka Abu Dhabi kadib markii la ballan qaaday arrimo ilaa iyo maanta waxba aan ka qabsoomin oo ku wajahan in loo buuxin doono booska Imaaraadka uu ugu jiray Soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo doodaha la xiriira wax ka dhiska ciidanka, qalabaynta iyo taageerida dowladda dhanka dhaqaalaha. Itoobiya oo siyaasadeeda aan ku dhisnayn koox iyo talada maalinkaas taagan waxa uu Turkigu ka dalbaday xiriirkii Imaaraadka ay la leedahay hoos loo dhigo, meeshana laga saaro dhammaan cilaaqaadka ay la leedahay Abu Dhabi, taas oo aan firiir dhanka Itoobiya ay ku noqotay. Abiy Ahmed wuxuu si gambasho lahayn markaasi uu u sheegay go'aankiisa inuusan qaadan doonin go'aan la mid ah kii dowladda Soomaaliya ay qaadatay ee ku aadan in meesha laga saaro dhammaan heshiisyadii dhanka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya u dhaxeeyay. Xukuumadda uu hogaamiyo 40 jirka ku abtirsada qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya, Abiy Ahmed weeyaan wuxuu miiska soo saaray kaalinta dal walba ugu jiro arrimaha laga maarmaanka iyo hortibinta u leh dalka uu haatan caynaanka u hayo. Wuxuuna sheegay inuu ilaalinayo si mid waliba halkiisa loogu siixin lahaa loogana dheeraan lahaa isku day kasta oo lagu fogeynayo cid ka shaqeynaysa danaha Itoobiya, taas oo noqotay jawaab aanu ka filaynin dhanka xulamad waa dhankaasi iyo Erdogan. Dagaalka Suudaan Abiy waa uu ka maquurtay inuu la safto dhankaasi iyo Burhan.
socdaalkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku tagay Addis Ababa waxa uu ku beegmay dharaaro ka hor xilli wakaaladda wararka ee Reuters ay daabacday in Itoobiya gudaheeda laga hirgeliyay saldhig ciidan oo lagu taageerayo kooxda RSF ee Suudaan ka dagaalamaysa kaas oo loogu talagalay in laga sameeyo wax kasta oo kooxdan ay u baahan tahay gaar ahaan dhinacyada hubka gudbinta sahayda iyo wax kasta oo dhanka dagaalka xilligan baahi ay ugu qabto Erdogan xulufadiisa Masar ay kamid tahay waxay ka hirgeliyeen saldhig ciidan oo lagu taageerayo garabka Burhanu ee Suudaan waxaana u soo baxday xisaab laftooda dareen gelisay oo aad u xoogan kuna wajahan in saldhigii Imaaraadku ka hirgeliyay gudaha Itoobiya uu noqon karo mid ka hortaga qorshihii ay ku doonayeen in lagu jibiyo kooxda RSF taas oo ay ka adkaatay dagaaladii sanadkii hore lagu galay galbeedka dalka Suudaan oo iyagoo gacanta ku dhigay goobihii dahabka caanka ku ahaa iyo ceelasha shidaalka oo magaalada El Fasher ay ugu horeyso inkasta oo qodobkaasi si weyn loo lafaguray haddana Abiy wuxuu guud ahaan badiiday inuu ku biro safka Burhan isagoo soo afjaraya taageerada RSF taas oo uu ku sameeyay in xukuumadda Suudaan ay ku daaban tahay Masar oo Addis Ababa loo arko cadowga koobaad ee Itoobiya xilligan ay wajahayso wadamo ay kamid yihiin Kenya, Uganda iyo Itoobiya oo ah wadamada foolaadka u ah dhanka Suudaan marka laga hadlayo waxay si weyn u baritaarayaan kooxda RSF aqoonsiga Somaliland Itoobiya oo diiday inay ka baxdo xaalad yacyoodka ah tan iyo markii la aqoonsaday Somaliland dabeeqadii sanadkiina dhaafay 2025kii indhaha daneeyayaasha gobolka waxay ku sii jeedeen Itoobiya iyada oo la wada dhowriyay go'aanka uu qaadan doono ra'iisul wasaaraha dalka oo la filayay inuu ku biiri doono safka wadamada cambaareynaya aqoonsiga Israel ay siisay Somaliland isagoo raaci doona wadadii ay mareen dalalka Djibouti ay foolaadka u ahayd hayeeshee 40 jirkan caynaanka u hay Itoobiya oo meel dheer sida la aaminsan yahay damaciisa badeed ka eeganaya waxa uu si bareer ah uga dhuuntay inuu ka hor yimaado aqoonsiga Israel ee Somaliland taas oo abuurtay tuhun la xiriirtay in Abiy uu doonayo inuu qaado Itoobiya la mid ah kii ay jeexday Israel sidaasina uu ku noqdo dal kale oo aqoonsada Somaliland intii ay socotay dood la xiriirtay dhinacyada waxa uu Abiy ku celiyay isagoo ka garab taagan yahay madaxweynaha dalka Turkiga inaysan Itoobiya marraba ka laaban doonin damaceeda la xiriir dhanka raadinta marinbiyood ay leedahay Turkiga waa mid ka mid ah dalalka ka qaylamaya geeridana ka xigo aqoonsiga ay Somaliland heli karayso wuxuuna Abiy kala hadlay in uu ka bareero mowqifkiisa aqoonsiga Somaliland oo uu cambaareeyo tallaabadii ay Tel Aviv ku dhintay gaar ahaan intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee lagu qabtay gudaha aqalka madaxtooyada ee Itoobiya Abiy oo wali ku sii taagan go'aankiisa in xilli hore uusan qaadinayn siyaasad ku wajahan aqoonsiga Somaliland wuxuu si cad uga muuqatay sida Erdogan u cambaariyay aqoonsiga Somaliland taas oo keentay in madaxweynaha Turkiga uu kaligiis ku dhiirado kuna kaliyoobo cambaareynta iyo eedeynta aqoonsiga Israel ee Somaliland wuxuuna ku sheegay inuu yahay mid aan cidna dheef ka heli doonin ama aan waxba laga faa'iidi doonin gobolka geeska Afrika oo dhanna urugi karo aga colaadeed wargeyska la yiraahdo The Report ee ka faalooda arrimaha Itoobiya waxa uu sheegay Erdogan inuu faram maran iyo natiijo la'aan kala laabtay dalka Itoobiya balse aan la isla gaarin heerka ay labada dhinac ay ku kala quusan karaan hadda waxa Turkiga miiska u saaran inuu ka shaqeeyo sidii Itoobiya looga taageeri lahaa helista marinbadeed oo ah arrin ay u jeelan tahay ama sida weyn ay ugu baahan tahay inkastoo ay taasi tahay mid laga wajahayo caqabado aad u waaweyn haddana isku dayga Erdogan ee haatan u yaala waxa kamid ah in dib boorka looga tumo oo looga jafo baaqi Ankara oo noqday mid aan halkii laga saxiixay aan laga ambaqaadin maadaama Soomaaliya laga waayay xeeb la mid ah jawaabihii ruuclo orodka ugu jiray ee gacanka cadmeed taasoo ah mid madaxweyne Xasan Sheekh go'aankeeda kama dambaysta gaari kara marka laga hadlayo isdiidooyinka waaweyn ee gobolka yaala madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan inkasta oo uu si weyn u taageeray Abiy Ahmed intii uu madaxweynaadkiisii ku jiray isla markaana dagaalada cusla ee TPLF uu si weyn uga muuqatay haddana mid aan shaki lahayn waxay tahay in xilligan ay suuragal ahayn Itoobiyaanku inay si cad uga bareeraan qadiyada ay kamid yihiin kuwa Suudaan Soomaaliya Israel iyo sidoo kaleeto qaabaysanka cusub ee ku socda mandiqada bariga dhexe oo si toos u saameynaya gobolka aan deganaanshaha haysan ee geeska Afrika